saraakiisha ciidanka isbitaalka ay soo booqdeen waxay arkeen kulli insha Allah qaybihii isbitaalka ka koobnaa iyo qaabka ay u shaqaynayeen bukaanada qaabka ugu shaqaynayo iyo dhakhaatiirtii iyo kalkaaliyaasha qaabka ugu shaqaynayo way soo arkeen kulli insha Allah waxaan ka siinay isbitaalka qaabka u shaqeeyo kulli waan ku mahadsanyihiin maamulka inay soo booqdeen maanta waxaan rajaynayaa mar kasta inaynu soo booqan doono haddii Ilaahay yiraahdo marka kulli iyagana talooyin ayna siin lahaayeen waa kulli waa warkoodan waa dhageysan doona haddii Ilaahay yiraahdo kulli wasaaradda caafimaadka ayaa isbitaalka gacanta ku hayso iyo mataqaana local partner ah wixii maaragtay shaqo ay ka socoto haddii Ilaahay yiraahdo waa sii horumarin doonaa insha Allah waa war badan fiican yahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta la soo booqday dhammaan madaxdii gobolka Shabeellaha Hoose iyo degmada Afgoye madaxdeeda iyo saraakiisha gobolka Shabeellaha Hoose iyo degmada Afgoye. Marka booqashadaas aadaan ugu mahadcelinaynaa sida sharafta leh ay noo imaadeen. waxaan rajaynaynaa inay sidaas oo kale mar walba ay noo imaadaan. Isbitaalkani waa isbitaalkii guud ee degmada Afgoye. wuxuu ka kooban yahay guud ahaan ilaa 7 dhismo oo qaybta ay departmentiga ku shaqeyso. shaqooyinka isbitaalku uu qabto waxaa ka mid ah bukaan socodka, waxaa ka mid ah shaybaarka, waxaa ka mid ah emergency-ga, waxaa ka mid ah dhalmada, waxaa kaloo ka mid ah nafaqadarrada, HIV-ga. waxaa kaloo maalmahan aan siinaa oo dadka bulshada wax ku qabanayo sida isbitaal Sumeyd la yiraahdo ayaa maalmahan visit ka galaa bukaanada isbitaalka kadibna qaliin lacag la'aan ah ayuu u qaadaa isbitaalkiisa oo qaliinka soo sameeya ilaa ay haddana kiis isbitaalka dhinaca dhalmada wuxuu u shaqeeyaa si dhammaystiran oo barnaamijka CMOG la yiraahdo kaasoo ah maamada ilaa iyo marka ay uur yeelato ilaa ay ka dhasho iyo hadday dhali wayso in qaliin loo sameeyo. marka adeegyada uu waa adeegyadaas haddii ay dhacdo adeeg oo isbitaalka ka weyn uu dhacane waxaa noo taal ambulance aan ku refer garayno bukaanadaas oo meeshii loogu talagalay aan ku geyno. marka isbitaalka hay-ad ahaan waxaa gacanta ku hayso hay-adda Jubba Foundation oo partner la ah ACF. maamulka guud ee isbitaalkana wuxuu hoostagaa wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed. dhinacyadaas ayaa tasiilaadka ama hadday noqoto mushaara ama hadday noqoto daawo ama hadday noqoto qalab intaba ay ka imaadaan. waxaa kaloo si xushmad leh oo sharaf leh noola shaqeeyo maamulka degmada Afgoye oo mar walba naga warqabo oo aan wada shaqayn buuxda leenahay. haddii ay ahaan lahayd dhinaca amniga oo saldhigga booliiska dhaawacyada muujinteeda iyo xeerka kulli wax ka qabano. haddii ay dhacdo in maamulka degmada ay howlo arrimo bulsho ay meeshaan kaga baalaarno waxaan u samaynaa sida ugu fudud ayaan wada shaqaynka u samaynaa. marka insha Allah waxaan rajaynaynaa heerka hadda aan taaganahay heer gaarno wixii dadaal waa dadaalayna